السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا برنامج كعافماتك وأنا دكتور يوسف عمر قالب. ما أنت وحن فيديو كره ليا حكيها أما ACL روجا أما حكيها أما سيد هور روجا سيدا أو سيدا أو بدن هذا يشير داوع سوقارو أما قودا حلقة لوجرو sports kama ciyaaraha lagu jiro videogan aad iyo aad wuxuu quseeyaa dadka dhalinyarada hadii jiro ciyaara balooniga ama kubadda ama wixii jimicsi oo kale marka video waxaan kaga hadlayaa saddex waxyaabood oo ku caawinaya oo aad iskaga yareynayso ku ilaalinayso ama chance ka aad hoos ugu dhigayso in dhaawac ka soo gaaro xijiyahan ACL ka ama xijiyaha hore ee ruuga uu ka dhaawac ka soo gaaro dhalinyaro aad u fara badan baa hadii jeer inta la soo xiriida qaar ii soo diray riboodada MRI-ga qaar ila soo ila wadaaga wax sida wax u gaareen dhaawac u gaaray waxyaabaha ay ka cabanayaan oo ay dhamaantood ay ACL ka ama xijiyaha hore uu wax soo gaaray marka videoga saddexda waxyaabood oo aad hoos ugu dhigayso in uu dhaawac ka soo gaaro ama ay ku go'do chance-ki aad hoos u dhigayso aad iskaga taxadirayso iyo waxa kale oo aan kaga hadlayaa 5 qodob oo isaguna aad muhiim u ah oo hadii jeer qofku markuu loo sameeyo amaliyad ama hadii jeer ACL ku marka go'do waxa loo sameeyaa key hole surgery ama kamarad baa ruuga lagu amalad lagu sameeyaa waxaana dib la isku xiriyaa seedi marka seeda kadib marka dib la isku xiriyo 5 waxyaabood oo hadii jeer mistake ah oo dhibaato oo si qaldan ay u sameeyeen dadku qaarkood marka ay amaliyada kadib maraan oo mararka qaarkood sameysmaysa in seedi aanay si fiican jidhku ama ay dib u go'do ama ay ku yimaado dhibaato ku timaado marka daawada hadda nagu cusub tahay fadlan channelkan subscribe sar videogana si share garee si looga faa'iideysto فيديو آدي أفرا بدن أو كسابسن حكيها ACL كا أيان كهالي أو ما أنت وحن كهالي يسوع سوكو بيو على مدها أتسكو عرقيسو هدي عيار سبلوني أما كوبدا وكلا عيار سو أما سبورتس كوبدا كوري جو كلا نوع عيها تبع سبورتس كو أدو عيارية هدي داو عكسو قالو على مدها أفرت على مدود وكوبدا أتسكو عرقيسو هدي أي وحكو قاردي سيداسي waxa kamida inuu qofku markuu dhaawac ama jug soo gaadhay inuu dareemo sanqadh oo kale inay wax go'een oo kale uu dareemo inuu qofkii xanuun aad u far badan dareemo oo xanuun aad u far badan inuu kale isku arko isla markiiba barar ruugi ku yimaada ruugi oo barara iyo inuu mar allaale iyo marka uu soconayo kale oo miisaankiisa soconayo in uu dareemayo in uu ku yimaado waxa loo yaqaano ama dislocation ahaan oo kale ama laabatadii oo sidii caadiga ahayd aan u shaqaynaynin ama uu qofkii dareemayo ruugi oo aanu si fiican u soo wada laabayn ama aanu aad u kala bixinaynin waxyaabahaasi waa calaamadaha hadii jeer la isku arko hadii xijiyahani wax ku soo gaaro ama dhaawac uu ka soo gaaro intaasi waa calaamadaha la isku arko saddexda qodob ee aad ka ilaalinayso hadii jeer lagu hortagi karo inuu dhaawac ka soo gaaro waxa kamida number 1 oo kale in aad sameyso markasta oo aad sameynayso jimicsi aad sameynayso ama wax sports aad sameynayso number 1 waxa aad iyo aad muhiim u ah in aad sameyso iskuulayn warm up aad sameyso waayo marka aad iskuulaynta ama warm up ka aad sameyso muruqyadii seedihii jidhkii oo dhamooda kullaanaya waxa hoos u dhacaya chance-kii ay ama koortagii in uu seedaas wax ku noqoto ay hoos u dhacaysa qodobka labaad waxa ay aad muhiim u ah markasta oo aad sameynayso wax sports ah wax jimicsi ah wax ciyaar ah in aad focus garayso oo aad ka taxadirto si aanu dhaawac ku soo gaar aanad barato si waxyaabaha ay u gaadho dhaawac ugu noqoto qofka oo si isla markiiba qof u gasa ama laabitaan u sameeya ama intuu kor u boodo hoos u soo dhaco dib u soo noqda oo ruugi isku laamo
iyo in uu qofkii uu sameeyo had iyo jeer mar alaale markaad jimicsi sameynayso. dadka qaarkood marka ay trainingka sameynayaan ama marka ay gymka aadayaan waxay only sameeyaan oo ay focus gareeyaan oo kaliya inay sameeyaan had iyo jeer trainingka nooca loo yaqaano flexibility ahaan oo kale uu qofkii training u sameeyo ama inuu sameeyo tusaale ahaan strengthening uu sameeyo jimicsi noocaas oo kale. laakiin waxa aad muhiim u ah in aad mar kasta sameyso, waayo jirkeenu muruqyo ayuu leeyahay. muruqyadaasi waxay inaga caawiyaan dhinac kasta, jiha kasta oo soconayso, dad hore u soconayso, hada dheeg u soconayso, aad u laabanayso, nooc kasta aad jirkaagu u soconayo ama isu bedelayo ay haddii muruqyadaada dhammaantood ay isku dheeli tiran yihiin ama ay wada adag yihiin ay ka caawinayaan. iminka haddii muruqyadaada ayaan isku dheeli tirnayn oo aad qayb uun jimicsi siiso, qayb kale aan jimicsi samaynin, way kala xoog badanayaan. waxaa laga yaabaa markaad daarag dhinacaan u laaban jirin ama dhinacaan u socon jirin ama aad u gasto ama aad soo laabato, muruqyadii qaybaha qaabilsana waxaa laga yaabaa inay aad u daciif u yihiin, si yaroo fududna ay ku go'do xejiyaha ACL ama xejiyaha hore.